marka koowaad horta waa la wada ogyahay oo de war qarsoon maaha maanta dagaal inuu bilowday shalay toole dagaalkaas oo ka dhex bilowday maraykanka iyo yuhuudda oo dhinaca iyo iiraan oo dhinaca waana dagaal ilaa hadda diyaarado iyo gantaalo laisoo adeegsanayo de ciidan lug iyo mid taangiyo weli isma taaban xuduudna male iiraan iyo yuhuud oo urdun iyo ciraaq baa u dhexaysa laakiin waxay xuduud ka leeyihin dee hawadan waa furan tahay gantaalaha laisoo adeegsanayaa oo dagaalku hadda waa dagaal gantaal iyo diyaarado ah baddana inuu ku dari doono waa suurtagal oo doomo lagu dagaalami doono xagga baddana laakiin ilaa hadda sawaariikhdaa socota waxayna intaan noo gudbin awooddooda iyo isbabardhiga awooddooda intaanan ka hadal waxaan rabaa inaan marka hore horta isla fahmno tacbiirka diinta xagga fahamka oo dadka qaar waxay qabaanba mar waxay dagaalka markuu bilaabanaya ghaza oo 2023 qaar waxay yidhaahdeen waa dagaalkii u dambeeyey yuhuudda lagu soo afjarayay oo markii ghaza nimankii xamaas iyo iiraan oo taageero ay dagaal xoogaa culus u dhacay oo weliba muddo dheerna qaatay waan u sheegna waxaan ku niri war niman yahow nimankan ilaahay waa soo afjarayaa oo yuhuud way jabayaan nabiga siduu sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin cidda jabinaysaa suufi ma aha shiicana ma aha weli meeshii baan dadka rabna inaan dareensiino hadday caalamka maanta waxa islaam sheegta bakistan ku dar ciraaq ku dar urdun ku dar turkiya ku dar shiicadan iiraan ku dar afghanistaanka talibaaniyada suufiyada ku dar hadday yuhuud isugu tagaan ma jebin karaan waktigan maanta la joogo maxaa yeeley iyagaa waddada ilaah ka leexday qolada keliya jebinaysa waa islaam dhab ah markuu yimaado ilaahina waa keenaya waxba lama ah subxaanahu watacaala inuu keeno islaam muwaxidiin dhaba oo ku dagaalamaya ilaahi kelimati illaahi kuwaasaa yuhuudda jebinaya waa kuwa nabiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam dhagaxu la hadlaya geeduhu la hadlayaan laakiin shiico iiraaniyiina haddaysan ka liidan yuhuudda iyo maraykanka kama sokeeyaan waxaana masiibaha dee dadku ma yaqaanaan dadkeenu khaasatan soomaalidu ayagu waa un qof muslim magacunba iska maqleen de ayaga suufiye iska ahaa dhagala wax badan aan ogeyn kuwoodii wax barteena ikhwaan baa usoo hormaray oo dhagaha wax uga shugay oo laga yaabo ikhwaan u sheegay in iiraaniyiintu dad fiican yihiin maadaama ay thawra islaamiya dhaliyeen 79kii oo khumeyni oo hogaaminayay maya nimankanu waa shiico waa safawiyiintii baabi'iye suniyiinta 5 qarni ka hor 1500 taariikhda milaadiyada ah markii uu qabsaday axmed shaah asafawi dhulka iiraan muxuu sameeyey 1 milyan oo culamo oo sunniya u dilay si aan mar dambaba loo maqal nebi maxamed iyo saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo sunnada nebigaba laakiin horey waan u sheegnay waxaan dhowr goor ku celcelinay qofku wuxuu jaahil ka yahay col buu leeyahay qaar badan marka jaahil ba waxay ka yihiin xaqiiqdii tawxiidka iyo islaamka iyo fahamka islaamka markaasuu markaad tiraahdo war arrintu saan maaha wuxuu leeyahay maya ujeedda laga leeyahy waxaa idinku filan xataa ragga siyaasadda wax ku tacbiiriya oo caqiide wax badan aan ka ogeyn ama aan danayn markii maraykanku ciraaq kusoo duulayey iiraan iyo shiicada ciraaq degan yay taageereen ma foga waa 2003 baan u malaynaya ama 2004 ama 2005 iyo markii kasii horeyso 91 ciraaq la isugu tegayey sadaam xuseen dee sadaam xuseen sunna umeydaan aqoon waxaa isugu tegay 22 dowladood maraykanka horkacayo iiraan iyo shiicadii ciraaq waxay la jireen maraykanka shiicadu mar walba mabda-ooda kama labalabeeyaan inay nin sunni a noocu doona sunni cilmaanim ha hadduu rabo inay colaadiyaan laakiin waxaa indhala aan waxba ogeyn waa iska dadkan faraha badana sunniga sheegta hadda baxrayn waxaa garaacaysa iiraan baxrayn maamulka haystaa sunni lagu tiriyaa shacabkuna 70% waa shiico iyagii baa ku farxaya magaaladoodii marka la duqeynayo manama waa caasimadii ee waddanka la yidhaahdo baxrayn shacabkii maadaama ay shiico yihiin dowladda la duqeynayaana ay tahay sunni nin waddankiisii xataa ku faraxsan waa in la burburiyo nacayb uu sunni u qaba darteed adinkuna masaajida ma uga ducayn karnaa baa qaar leeyahay
waxay idin tusaysaa horta inaydan waxba garanaynba cadowgiinana idana aqoonba waa dadka sunnada xataa waxuun bal inay nabi maxamed raacsan yihin iska dhiga laakiin gaal ilaahay kama jecla gaal shiiciya oo cali ibni abi taalib caabuda iyo gaal nasraaniya oo ciise ibni maryam caabuda iyo gaal yuhuudiya oo cuseyr caabuda ilaahay ma kala jecla koodii awood badan ba oo taagtiig badan ba adkaanaya ilaahay nasri ma siiyo kufaar ama qunuud ama ha qunuudin dhanka kale dhankii caqiidada shiica waa cadowgaas ilaahay barnaamijkooda siyaasiga waa kee khumeyni baa qoray buuggooday ku taalla xukuumat alislaamiya fi iiraan buugga uu qoray kan cali khamaneygii shalay la dilay kii ka horreeyey oo aasaasay dowladdan wadaadada shiicada hogaaminayaan 1979 ruuxullah khumeyni ninka u bixiyeen baktiye waayadii 88 dhintaan u malaynaya ninkaasaa qoray wuxuu yidhi waan baxaynaa waan dhaqaaqaynaa waa ninka furaha askarta ciidanka qoorta u gelin jiray furihii jannada sidaasoo jannada hayo askari kastoo iiraan iyo dagaalkii ciraaq iyo iiraan markii 8 sano dagaalamayo waad ogtahay furuhu qoorta u gelin jiray markaas waxaa loo bixiyey miftaaxuljanna isagaa qaybinaya markaasay farxayaan weliba niman halkaa gaarsiisan weeye inay nin ka qaataan jannada furaha janno fureedu haya asagoo ha isgeeyo kaafirku yacni ninkaas ayaa buuggiisa wuxuu ku qoray markuu qorayey dadka yaqaanaan haddana waa la hayaa kitaabkiisii xataa niman ikhwaana ayaa daabacay oo wuxuu yaallaa qaahiru yaallaa waa nasiib daro maktabadaha ikhwaanulmuslimiinka in laga helo buuggii khumeyni laakiin dadkan waxba fahamsaneen baa ku siran dadkaas waxay dhahaan ikhwaanku thawrad baa naha islaamiya iyaguna waa thawra waa isgarabsanayna heshiis baa ka dhexeeya weligood col ma noqdaan ikhwaan iyo shiico marka waxaa ku qoran buuggaas isagoo odhanaya waan baxaynaa waan dhaqaaqaynaa waxaan tegaynaa xarameynka waxaan nebiga hareerihiisa calayhi salaatu wasalaam ka saari doonaa labada sanam ee qurayshta ah dabeedna waan daldalaynaa labada sanam uu sheegayay waa abubakar iyo cumar iyo zakaus bixin marka cadowga ilaahay ee saa u fikiraya weligii oo saa hadafkiisu yahay hadafka ugu weyn ay leeyihin ayagoo sunnada inay ka takhalusaan inay dad islaam oo kale jiraan ma ogola ayagoo islaamta ayagaa isu yaqaane qayb ka mida waxay rumaysan yihiin kitaab ayagu faatimo rasuul kusoo degay nabi maxamed kadib caleyhi salaatu wasalaam oo loo yaqaan musxaf faatimiya marka soo baara kadibna ogaada keliya nacaybkii aan u qabnay gaalada kale reer galbeedka iyo yuhuudda iyo yaa dadka qaar indha tiray oo gaaladan kale u muuqan weyday annaga waxaan leenahay allaahuma sallit adaalimiina bidaalimiin allahuma sallit aldaalimiina bidaalimiin wajcalnaa baynahum saalimiin ilahay xikmadiisa wey ilaah labada daalimin isku dhifto annagana dhexdooda naga dhiga kuwa badbaaday muwaxidiintu ay badbaadaan cadowga ilaahayna alla isku dhufto waxaan usoo gudbayaa dagaalka socda marka dagaalka waad fahamteen inuusan ahayn kii yuhuudda lagu jabin lahaa akhir zamanka bal yuhuuddu way og tahay waxay hadda ka faaidaysanaysaa inta trump joogo maadaama trump uu ka tirsan yahay garabka yaqaanaan waxay u yaqaanaan nimanka mutaطarifiinta ah maaga la baxay iyo aaga waxay yidhahdeen ma aqaan oo aada isugu xiran yihiin loobiga yuhuudda qolada mintidka ay yidhaahdaan amase asal raacooda ah kufaarta asal raacooda inay kaga faa'idaystaan inta uusan xukun ka dhicin maadaama sanad baa u haraan u malaynaya inay iiraan iyo meeshay ku leexin karaan ku leexiyaan isaga laftigiisa ay fara ka hayaan baa la yidhahdaa oo ku shaqaysanaya awooddiisa ciidanna ku shaqaysanaya kow dagaalkan way galeen haddana already saraakiil muhiima iyo ninkii ugu weynaa waa dileen xaarisul-jamhuur ninkii waddanka haysta ciidamada waa dileen wasiir gaashaandhigga difaaca waa dileen mukhaabaraadka ninkii ugu weynaa waa dileen waxaasoo dhan marka maxaa yeelaya waxaa ku dhex jira jawaasiis waaweyn oo saraakiisha ka mid a bal dowladda ka mid a shirkaasoo kale xasaasiga ah nin ogaan karaa waa yarya hadduusan madax ahayn dowladda ku jira jawaasiis waaweyn bay moosaad meesha ku leedahay iyo si ayaduba laakiin hadda kumaana guulaysan warshadoodii burburiyaan iyo hubkoodii dagaalku inuu dheeraado waa laga yaabaa oo muddo markay gantaaladu socdaan maraykanka jooga ciraaq dhulka isticmaalo ciraaq saldhigyo waaweyn bay ku leeyihin in dhulka isticmaalo dhulka dagaal ka qaado waa possible
in dagaalkanu sidaan ku istaago oo kuwan la baqdin geliya maadaama odayaashoodii haddii laga dilay ayaguna isdhiibaan ama isdhiibidaan ogolaadaan nuclearka barnaamijka bacriminta inay joojiyaan iyaduna waa wax dhici kara laba qoloo dadka qaar way fahmeen China iyo Russia inay beenaalayaal yihiin qola ay raaceen ma guulaystaan Saddam Hussein saan oo kale oran jireen ha ka baqin waa ku garab taagannahay anta macaso way oran jireen maalintii dagaalku ku bilowday Saddam Hussein maalintii u dambeysay ko Venezuela hadda ma ogeedeen kii hadda Venezuelanka shuuciga maalintii la qabsaday hadallo khafiif ah ku hadleen ka xunnahay midnimada waddanka madax banaanida waddanka meel in looga dhaco Iran hadda Iran waxay kula jirtaa Shanghai Alliance wax la yiraahdo si NATO dhisan tahay urur dhisan baa jiro Shanghai loo bixiyay oo China lagu aasaasay oo Shiinuhu ku jiro Ruushka ku jiro Korea ku jirto North Korea Iran ku jirto aawe ma gurmadaan nin iyaga garab mooday baa hoogay marka xaaladdu qaraarata meel xun bay uga tagaan saaxiibkii meel xun bay uga tagaan inta waxaan markaa kaga soo gudbayaa waa dagaalka hadda socda waxaan quwaddii aan miisaameynaa marka Iran haddii ciidan lug la yiraahdo lama jabinayo laakiin barnaamijkan hadda la wado iyada laba arrimood bay adeegsataa wax la yiraahdo diyaaradaha loo yaqaan diyaaradaha yararka ee iyagu ishaga oo drone-ka loo yaqaano bambo lagu xiray bam ilaa iyo 20 30 40 kiilo TNT ku xiran ama 400 kiilo oo meesha ku qarxa xoogaa jug fiican gaarsiin kara ilaa 100 mitir 200 mitir wax gaarsiin kara waa TNT waa qarax caadi ah ma aha mid sumaysan ama hubaysan kow iyo saddex nooc oo gantaal ah gantaal 400 rididiisu tahay mid 800 iyo mid 1100 ah oo kan hadda ugu xoog weyn weli ma adeegsan la yiraahdo waxay kaloo leedahay gantaalo badda loogu qowso hoos marinada lagu garaaco oo Chinese-ka hadda siiyay la yiri hadda marka aad gantaalo fara badan bay leedahay dagaalka marka la isdaalinayo gantaalada faraha badan baa la iska dhameeyaa oo iyagu inta soo yaaciso laga yaabo xataa kuwa caaga inay ku dhex darto boqolkii daroon ay ridaba 10 ay sax ka yihiin 9 ay falsiin marka nimanka difaacayay oo gantaalada ka horgeynaya Patriot wax la yiraahdo garaacaya Patriot waa gantaal isaguba qaali ah gantaalada ka hortaga marka boqolaal la rido marka balaayin dollar ba halka ku baabaaday awoodii cadowgaaguna uu yaraaday waa hadii la rabo in la isdaaliyo muddo kadibna qolo ay dagaalka ku guuleysto ma garanay marka labada qolo inay isugu tala galeen dagaalkana dheereeyaan oo gantaaladan muddo la isku wada hadda dhulka loo bedeli doono ama badda ay ka bilaaban doonto gacanka Hormuz dagaal ka bilaaban doono oo maraakiibta degan Mareykanka hadda uu keenay Hormuz degan ay gantaalaalka ka bilaaban diyaaradu inay ka dulkacaan dhulkana doomo yar yar oo ka diro oo marka ciidan lugeedna halka laga bilaabo possible oo meeshan Qatar waxa u degan saldhig weyn Bahrain saldhig weyn Kuwait saldhig weyn buu ku leeyahay gacankan Persian-ka loo yiraahdo ka gali kara dagaal Mareykanka oo lug haduu rabo si kastaba ha ahaatee dagaalku wuxuu gaal ka noqon doona ma naqaan hal arrin aan rabo marka dadka qaarna dhagahooda ku shubo oo dadka far waaweyn in wax loogu qoro mooye waxba fahmi karin ma taqaanaan macnaha ereyga Tahraan caasimadda Iran Tahraan waa tii tahirnayd maxaa laga tahira ma taqaan waxaa laga tahiray masaajid hal masaajid oo sunni inaan laga dhisin dib baan mar labaad kugu celinaya cajaladda masaajid hal masaajid oo sunniya kama dhisna caasimadda waddanka Iran ee Tahraan laakiin kaniisad kristan waa ka dhisan tahay synagogue wax la yiraahdo yuhuudda ay ku cibaadaystaan waa ka dhisan tahay mamnuucna waxaa ka ah masaajid marka la adimayo aan lagu darin ashhadu anna caliyan waliyullah masaajid aadaankeenan sharciga sunnada loo qaabka mamnuuc nin magaalo caasimadiisa ka tahiray masaajid ilaahay lagu waxidayo in laga dhiso yaadada waa dowlad islaam oo jihaad bay ku jirtaa waxay cadeynaysaa meesha aad ka joogtaan faham iyo diin nacam cadow ilaahay oo cadow ilaahay la dagaalamayo wey annaguna waxaanu ku ducaysanaa ilaahu cadowgaaga isku burburi annagana fursadna sii muslimiintana dhabta ahlu tawxiidka ilaahu fursad sii cadowgaagana ilaahu madaxa isu geli isku hooji iyaga
intaasaan kusoo gabagabeynaya qofkii doonayay iiraan ha soo baaro ereyga tahraan waxa loola jeedo, ha soo baaro dhibaatooyinkii safawiyiintu ay u geysteen dadka suniyiinta. iiraan waxay ahaan jirtay dhul sunni ah 500 sano ka hor, 70% suniyiin bay ahayd. maanta 95% waa shiico. yaa saa yeelay? axmed shaah asafawi wuu xasuuqay culimmadii. shacabkii markay soo haraan bilaa culumina culimadooda shiicay noqotay. saasaa shiico lagu noqday. ilaa marka dadka shiikha laga dilo shiikhu waa hogaankii diinta, waa fahamkii dadka wax usoo celina, waa muftigii. qaarna carareen. 1 milyan shiikhu u dambeeyey magaalada wuxuu ku dilay la yidhaahdo caasimadda waqtigaas waxay aan jirtay magaalada hadda galbeedka u xigta oo weyn oo ku dhow wadankan Azerbaijan ku dhow, Tiraz Namen magaalo saasay leedahay, magaceed maxsuusaad. ayuu imaamkii masaajidka ugu soo galay axmed shaah safawi maalin jimca isagoo khudbaynaya. halkan wuxuu ka saaray seef. hal su-aalo dadka weydiin jiray marka imaamku, ninkan taaqi ah, qofkii imaama ama sunni ama culamaa, wuxuu leeyahay maada taquul can abubakar wa cumar bes. abubakar iyo cumar maxaad ka leedahay? radia allahu canhum haddaad tirahda qoorta lagaa jaraya. lacnat ullahi calayhim buu rabaa in la yidhaahdo, qofkaasaa lasii deynaya. waxay u tageen imaamkii u dambeeyey oo mimbarka saaran, isagaa gacanta ninkii madaxweynaha wey ayaa halkaa ka saaray seef. maxaad ka leedahay buu yidhi abubakar iyo cumar. markaasuu ridwaan ullahi calayhim radia allahu canhum buu yidhi. maba sii suginba marka meeshuu ku gowraca, mimbarka dushiisa ku dul gowracay, ku khudbaynayey. amar wuxuu ku bixiyey ciidamadiisii xiidmaha, calooshiisa xiidmaha inta la jiido masaajidka in lagu daadiyo hareerihiis. soo akhriya taariikhda. dad juhala indhala oo wax badan aan taariikhda ka ogeyn oo iska un de cadaawaddii reer galbeedka iyo yuhuudda arkaya un baa tihiin. waa cadow ilaahay oo cadow ilaahay ku ciqaabay. yuhuudda waa cadow ilaahay, ballan alla uu u qaaday bayna ku jirtaa. uma radadnaa lakum alkarata calayhim bay hadda ku jirtaa. oo marka hore waxay ilaahay ballan ka qaaday 2 goor in adduunka fasaadinayaan. waqadaynaa يعني في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كتابك التوراة بقى الله قري سبحانه وتعالى 2 goorna adduunyada fasaadin doonaan oo 2 goor isla sarreyn doonaan. weliba 2 goorba mar walba ballan baa ka dambeeya ilaahay ku ciqaabi doono. فإذا جاء وعد أولاهما 2 goor ballanta kii koowaad markay ciqaabteeda timaado بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. alla wuxuu yidhi addoomaan idiin soo saarayna annagoo aan leenahay addoommadeenna oo uli ba'sin shadiid dagaalyahana ah. fajaasuu khilaala diyaari guryaha gudahooda idinka baadigoobi doonaan. wa kaana wacdan mafcuula, waana dhacday. dad badan baa horta xilligii ibnu kathiir iyo ibnu jariir atabari iyo waxay ku fasirayeen bakti nasr ninka aada u xasuuqay 70 kun buu ka dilay. waa intaa nabi maxamed alla soo dirnay calayhi salaatu wasalaam oo ay nebi zakariye iyo yaxye dileen ayaa nin gaal oo carab ahaa oo bakti nasr loola jiray kasoo duulay ciraaq oo awood badnaa 70 kun buu ka dilay. culimmada hore tafsiirkaasay saareen, laakiin culimmadii dambe waxay og yihiin xisbigii naasiga Germany ee 1945 taariikhda milaadiyada ninkii uu hogaaminayay Adolf Hitler wuxuu ka dilay 6 milyan iyo bar. holocaust waa loo bixiyey. wuxuu soo sameeyey xeryo badan oo loo bixiyey xeryaha xasuuqa la yidhaahdaa, concentration camps ba la yidhahdaa. oo lagu ciqaabaya qofka oo lagu shaqo markuu duqooban dab baa lagu reebaya, foorna lagu reebaya, timihiisana bustaa laga dhiganaya. 6 milyan iyo bar taariikhda ma soo marin. haddii la buunbuuniyo adiga 1 milyan ba ku dar. 5 milyan iyo bar baa xataa yarayn oo bani israa'iila. wuxuu amar ku bixiyey yurub meeshuu nin Germany joogo ama dowladda Jarmalka awooddeeda gaadho yuhuudda joogta in lasoo laayo lasoo qabto. Poland kuwii joogay, kuwii France joogay, kuwii Greega joogay, kuwii Czechoslovakia joogay, kuwii joogay ee Hungary iyo Austria wuu la baxayay. iska dhaaf kuwii Jarmal kaliya joogay. yurub oo dhan baa laga baadigoobay. fajaasuu khilaala diyaar. weliba wuxuu amar ku bixiyey Hitler iyo xisbi gaara uu sameeyey, ciidan gaara. ciidanka waxaa la oran jiray Das Reich, ciidanka ciqaabta la yidhahdaa oo Jarmalku sameeyey ee baadigoobaya nimankan yuhuudda ah oo u yaqaana isagoo afka Jarmalka erey lagu yidhaahdo Untermenschen,
untermention waxaa la yidhahdaa marka english lagu fasiro waa subhuman bini aadan ku-xigeen wey bini aadanba maahan buu yiri mention untermention waa bini aadan ku-xigeen oo af jarmala ayuu u bixiyey yuhuudda magacoodii meeshaad ku qabataan ku laayo dasraakh baa raadsanaya marka ciidan gaar u sameeyo baadigoob yuhuudda keliya raadsanaya markaasuu ciidankaasu weli waxa amar ugu bixiyo qofkii jarmala oo qof yuhuuda qariya isaga in la dilo kasoo qof walba iska soo cayrinaya ciqaab miyaysan ahayn intii u dambeysay 4,000 u dambeysay marka dagaalkii ay soo galeen reer galbeedkii oo neto ahaa oo yani bariga xagga galbeed ka soo galeen France ka soo galeen iyo ruushkii oo bari ka soo galay ay Berlin isugu imanayeen 4,000 baa xabsi ku jirtay la yidhaha Schwarzkopf xabsi Poland ku yaal intaan la qabsan Nuremberg ku yaal intaan la qabsan 4,000 baa ku jirtay 4,000 kama gaaranayo xabad inaan ku dilno nolol ku aaso yiri nolosha lagu aasa 4,000 ay u dambeysay waa xabsiga Nuremberg la kuwa kale kuwa nool baa laga gaaray oo laga soo saaray ayagoo caato dhamaaday oo qaar badan la soo badbaadiyay waa ciqaab ilaahay wuxuu yiri thumma radadna lakum alkarrata calayhim mar labaad baan awood idin siinayna oo dadkii shalay colkeedii awood idinka ka sarmarnayna waa maanta maraykankii bay maamulaan maanta wadankii xoogga badnaa ayay maskaxdiisa noqdeen dhaqaalihiina waa haystaan warbaahintiina waa haystaan siyaasaddiina waa maamulayaan iyagaa rogroga siyaasadda maraykanka gudihiisa ka shaqaysa xataa amerikaanka laftigiisa afduuban yurub iyo america iyo australia maanta iyaga gacanta ku haya ilaahay maamulka marka maxaa loobigaas dhaqaalo u aruuriyaa siyaasadoodana waa ayidaa halkaana waa meesha ku dagaalamayaan oo rumaysan dhulkii awoowayaashooda inuu yahay masjid aqsa ku dagaalamayaan ay rabaan inay soo celiyaan dowlad weyn oo loo yaqaan Greater Israel oo labada webi u dhaxaysa webiga Niil iyo webiga Furaad iyo Ciraaq iyo Masar inta u dhaxaysa inay dowlad ayuu ka noqdaan oo Urdun la laqo oo Suuriya la laqo oo Ciraaq la laqo oo Masar qaybta webiga wixii ka xiga bari la laqo intaba yuhuud isku noqoto Falastiin warkeeda badaa oo qaarkood waxay ku doodaanba Madiina inay iyagu leeyihiin oo Nabi Maxamed uu ka soo saaray calayhi salaatu wasalaam maadaama waagi ay deganaayeen iyagoo qoysas ay deganaayeen markii nabigu joogay salawaatullaahi wasalaamu calayh yuhuudda marka waa waxaa hadda ilaahay siiyey fursaddii labaad maanta maxay isku darsadeen inay dhaqaalana haystaan military haystaan siyaasadda maskaxda dowladaha waaweyn hagayaan oo ciday rabaan ku garaacaan jawaasiis iyo niman Mossad very tough ah oo ay meel walba dhex geliyaan haystaan hadda Iiraan waxa ay ku jilcinayaan waa maxay waxa ugu muhiimsan waa basaasiinta 30 sano iyo 10 sano ka hor iyo 20 sano ka hor baa la dhex geliyay jananadii iyo dowladdii iyo wasiiradii ku jiraan iyo golay baarlamaanka laakiin waa dhimanta toodii ilaahay ku jabin lahaa wuxuu ballanka u dambeeyay marka fa idaa jaa wacdu al-aakhirah ballanka u dambeeyay markuu yimaado kii hore waa la soo ciqaabay waan soo marnay taariikhiyan waan u haynaa haddaba raadi holocaust ku qor google-ka bal raadi wax ka dhaca meesha fiiri wax iyadoo duuban baa la helayaa oo say ahayda waxba aan lagu darin ballanka labaad ba alla yidhi fa idaa jaa wacdu al-aakhirah kan kama dambaysta hadduu yimaado liyasuu wujuuhakum wajidiina xumaan doona masiiba idinku dhacaysa wey yaa ka takhalusaya kan dambe muslimiinta waliyadkhulu lmasjida kamaa dakhaluuha awala mara masaajidka ku cararayaan madaxdooda si loo badbaadiyo wayna imaanaysaa way soo dhowdahay biidni illaahi caza wajal dad calan islaam wata tawxiid wata shirki la dagaalamaya daaquud ku kufriyey kuwaasaa ka adkaan kara yuhuud laakiin suufi iyo mushrik iyo shiico iyo calmaani iyo ikhwaani isku dhex duuban waxba ma bedelaan waxba ma bedelayaan keliya un waa kacdoona dad badan bay dareen gelinaysaa arrintani ilahay idinkiina waa imanaysaa mar dhow in laga adkaado cadowga ilaahay yuhuudda iyo nasaarada la socotaba way jabi doonaan laakiin cidda jabinaysaay waa allah sababtuna waa kuwe muslimiin dhaba hadda khiyaari kuwan axan ayaa ka adkaanaya waagii dhaweetay khaze ka dagaalamayn dadka waan u sheegna laakiin waxaa la jihaadka khaze ka soo horjeedaan hadda waka maya haddii masar iyo suuriya iyo israacaan urdun ayagoo sidaana calmaaniyiinta waxba kama qaadayaan 1967 yuhuudda maxaa laga qaadi waxba
afar wadan shan wadan oo carab aa la dagaashay xataa ciraaq oo xuduud la lahayn baa soo gashay dagaalka iyo afarta xuduudda la leh waa lubnaan suuriya urdun iyo masar 760 waa markay qabsatay masjid al aqsa oo intaba oo Sinai qabsatay oo qabsatay gobolkan hadda Syria ka haysta Golan Heights loo yaqaan oo buuraha beeraleyda shawa ay ka qabsatay Lubnaan xaxoo qaadi waayeen maya iyaga mulxidiina iyaga mushrikiina iyaga diintooda magac ka haysta bas maalinta islaamnimo dhabi timaado Mareykan baa u hiiliyay iyo Jarmal baa u hiiliyay iyo Yuhuud baa Mareykan baa cid walba ha taageerto maalinta islaamnimo dhabi timaado way ogyihiin iyagoo maalinta way jabayaan way is ogyihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa islaam dhaba Allah keena ku ducee gaaladana gaalada Allah ku jabiyo ku ducee haddaad u muslim tahay waa haddaad islaamnimo rabto islaamkii dhabta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay imanayaan khilaafadii rasmiga ahayd ku ducee wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam